dawgii cadaad ogeyd laami lagu duugiye salaxley diyaar waxay u tahay kaama daahsanaye ood weyne dabayaaqadii waatan loo degaye balli gubadle waxay doonayaan waa dariiq dhabaahe dawgii hargeysa iyo berberayaabtay dunidii intaan dawladay qabo wuxuun hadal ku daalayno oo waxay dad kale noo qabtaan damacu noo sheegay ama danteenaba ku lumin hay'adaba joogso bulsho inaan dareen yeelana waa wax noodana dawga wixii yalla aad uga tuurtaaba oo aad ka dudabaad wanaag daacadii heliye dariiqan bulshay wada dhisnaa baa ka sii darane waa darajo weyn oo ilaah daayin ku qoray dabaqyada fardowsa ilaah daayin nagu geeyne dariiqa jannada loo maraa sahal ku doonyoone dunida iyo aakhiraba waa deeq lagu dhigay waa dalawa aan ka gudhayn daayin abidkaaye ma dulooba ruuxii wanaag doona abidkii iyo ducada iyo aamiinta iyo qaati darajooyin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن داود يالد لهانتين بميل كستا دوينها كسوغنتين كسو دوادا برنامج جارا ونكويجي دونو قاب كيها بسامي سعود كالاسمها وضد عرقابو وعاكالو داود يالا اسلا برنامج كينينا ندي كسو قادن دونا مناسبة بلارنو كدعداي قوبتا اي كسعودو اسمها وضد السناق تاسي وقوديغا قارن ورنتي قابان قابدا اسمها وضد عرقابو لغو قدونسين اي قارن لعاقيد و ايسو كالا ديرين حبلها قبل كالسناق يسيدو كالي حبلها جاهلية داهي مقالة بيرت استراليا haddaba wadayaal aan idin kala baxo barnaamijkaasi iyo sidoo kale munaasabadaasi siday u dhacday waxa kale aanu taabanaynaa in mashruuci soo gaaray 10 kilomitir aan qorshayagu ahaa haddii alla yiraahdo qorshihii wadada 10 kilomitir oo horeeyay marka aanu face-ka imika ka laabanana waxaanu bilaabaynaa 10 ku xigay marka waxaan leeyahay Cergaabo ummad ahaan hawl aan soo qabsanay dumarku mahad badan bilay waxa filay cidii inoo horseeday wadada inay socoto ama dawladda maanta joogta ahaato ama dadka reer Soomaaliya ahaatee way ku mahadsan yihiin hawl aan soo qabtay reer Cergaabo waxaan leenahay wixii ay dawladdu qaban karaysay waa la qabtay waxa la rabaa reer Cergaabo inay hawsha dhinacooda ka qabtaan waliba ragga la hadlaya cuqaashiina salaadiintiina dee wixii ay ku ballan qaadeen guddidu way idinka sugaysaa horta waxa farxad weyn noo ah oo markii labaad ahayn markii saddexaad ahayn oo markii afraad aan malaynayay tahay yaani maamuuska ayna maamuuseen dadka reer Cergaabo annagoo shaqaalihii wadada ka shaqaynayay ee u xil saarnaa wadadan shaqadeeda markii afraad ee ay halka nagu maamuusaan ama kimisa noo soo dubeen ama xoolaha noo keeneen ama sharaab iyo timir noo keenay horta waxaan leeyahay ragga wali afkoodii duuxa waxa weeyaan dee subagii baa ka daayay ilaa yaani shaqada si loo bilaabay oran maayo yaani maalin kaliya deeqda dadka dadweynaha reer Cergaabo ay keenayeen rag iyo dumar wali dumarka u badnaadeen ilaa imka afka lagu hayo waxay ka yeelaan maalintii hore aad bad mahadsantiin in fact waxa weeyaan shaqadu halkan joognaa waxa weeye waa kilometer 9 plus 400 waa kilometer 9 bundada waa bundadii 10 kilometer ugu dambeysay weeye wadada waxa weeyaan sidii loogu talagalay u socotaa waxaad moodaa jayga laftiisu imka waxa weeyaan qaybtii horeysay weyna soo gaadhay karasharadii waxay noo yaalaan imka berbera laba karashar baa yaala labada karashar markay soo galaan waxaan muulaynayaa macna in yaani wadadu ay deenka soo istaageen 10 kilomitir anagu waxa 10 kale seerfooyigooda hadda noo bilaabmay oo ku jirnaa oo kilomitir 20 ayaa imka noo astaysan in kastoo noo faliski qaadin waxaan bilaabaynaa clearance-kii in la cadeeyo oo aanu cadeyntii bilowno laga bilaabo taxnan ilaa halka 10 kilomitir kale ay ku joogaan oo grader tan ay gali doonta teamkii survey-gu waa diyaar qorshihiina waa la soo approve gareeyay halkan oo taas waa Cergaabo in afmadoow laftiisa waxa weeyaan imka 10 kilomitir iyaguna waa gabagabo iyaguna intaan marayna maanta waxa weeyaan 10 kilomitir baciid oo taala waxa uu finala 6 baa uu finala 4 baa ku jira yaani ma taqaana qayb u dambeeyay maraya process ku jira halkan lafteeda waxa weeyaan ilaa 6 kilomitir baa noo final imka oo final ku dhow oo u baahan in graderka iyo levelka in lagu celiyo ceelafeen waxa weeyaan 5 kilomitir in fact iyaguna waxa weeyaan waa gabagabo waxa weeyaan 500 mitir baa harsan leerkii labaad baa la saarayaa gar adag waxa weeye waxa bilaabantay ama lagu jiraaba shaqadii hawshii gooyntii baa socota wadada gar adag waxay badan tahay oo halkii boholihii eeriyadii ugu dhibaato nagu hawl badnaa weeye iyada inta waxba la dhigin gooyn baa la wadaya horta inta hore oo dhan kaabada badan intaas fact way leedahay bridge bay leedahay weyn laftiisa oo kon kale waxa weeye kalfeert sadeer weeye marka waxa weeye shaqadu
meel kasta waxaad moodaa wixii hore loo qorsheeyay inuu dhammaanayo marka waxa weeye qorshihii labaad ee haddana 30 kilomitir ama 40 kilomitir waxaan leeyahay isku yarinin ee meelba 10 ceelfu inuu 10 ku darno halkan 10 ku darno galada 5 baa markii hore balangareysnaa 5 toban iyaga ku daraynaa waxaan soo survey garaynaynaa 10 kale oo in af madooba marka qorshaha in fact waxa weeye saas u soconaya waan mahadsantiin waan u mahadnaqaynaa dumarka yani say soo abaabuleen halka waxa jooga dumar ka badan oo qaar sharaab noo jiraan durab gudidii hore intaan gudidan la sameeyay waxa jira habla wadada lacag u ururin jiray oo wadada la bilaabin iyaga sharaxi doona sida ku ururin jireen iyo taariikhdooda magacayga waxa la yiraahdaa Nasra Ciise Xasan waxaan ku hadlayaa afka haweenka kaalmada wadada ee gobolka Sanaag ama degmada Cerkaabo annagu waxaanu nahay dumar isu xilqaamay hadda ka hor annagoo ka duulayna ballanqaadkii madaxweynaha inaanu qaadhaan u ururino wadadan Cerkaabo waxaan u furnay akoon wada habshil baan u furnay itaalka de dumarka waa taqaaniino itaalka iyagan ku ridayn ma sha Allah iminka nimcaatimi alxamdulillah waad aragtaa dawladda iyo shicibba waa laga wada qayb qaadanaya waanu hambalyeynaa dawladda waana u mahadnaqaynaa shicibkana waxaanu leenahay de waa dhulkiiniye u soo jeesta haddaan maxay ay tahay wax ka sheego lacagtan aanu sidno waxa weeyaan 2400 waa 2400 oo doolarka Mareykanka ah waxaan ugu talagalay in wadada de wax laga qabto iyadoo wax badan qabanayn haddana waa itaalka iyaga waxaanu isniri wixii fartii la taagaaba wax bay taraysaa 10 senti wax buu tarayaa waa itaalka iyaga waxaanu leenahay waan iminka u dirayaa baaq haweenka reer Sanaag meel kasto joogan haday qurba joogan iyo haday gobolada kale jooganba iyo haweenka reer Somaliland in la caawiyo wadada Sanaag annagu waxaanu ahayn hablihii gobolka Sanaag u horeeyay 4 sanadood ka hor annagu aan ilaahay mooyee cid kale na dirin annaga istiray haddaanu istiray hablaha iyagaas waxaanu ahayn hablaha gobolka Sanaag u dhashay haan walbana leh waxa weeyaan haddaanu hablaha iyagaas aanu isnidhi war ciidda tan maalin walba beerkiina googo'ye aynu gobolkeena u kacno oo aynu halka ciidda dhigno haddaanu gobolkii dib ugu noqonay hablihii waxayna yiraahdeen aanu markayna arkeen inaanu isu taagnay gobolka Sanaag oo aanu ciiddii u horeysay dhignay ayaa wax yaraadna maxay ku hadasheen ma idinka gobolka Sanaag maanta u dhisi karaa wado waa u dhisi karayna ilaahwana waa nala qabanaya ilaahay waa taasoo maanta waa nala qabtay 4 sanadood idinama dirin annaga istiray waxaan baa ku dirayaa gobolka Sanaag hablii u dhashay ee jaaliyadaha ahaadeen dal iyo dabadba jooga waa idin aragtaan dabadii dhaqaaqday ku soo dara wixii daayidin idinkuna itaalkiina asar dhammaan shacabkiisana haago marshaaca qaad سيقيركنيو كبير ساكياني هارين قناعستوي توسو تهاجيروي هاو هدا هرد سيحتي هيني مرون كسيلل القبيل هويجين قوي لانيدين كدا هرشي قبيل هجين سو أجيب دولكاجي ويه دوم هذا الكده الغفيوها دحبان الله يقلبي جنو مودم قادو روح كدير بمشيرو دوغر يرسنا ويان ايغو بلدبو جليع دليلها شيغينا دهه oo la soco daliilaha sheegina dheeha oo la soco hadaynu tashano bulsho yeelanayno tamar ilaa burco waan tagaynaa taagow tobankii u horeeyay maanta inuu taaganahay ee Allah u tubta toosan iyo toobiyahana maray caruurta yaryar hooyadu markay ilmaheeda ciyaarsiinayso buu ilmo markuu hadaaqayo wax fiican yiraahdaa waxay uurka ka jeclaysato marka waxay taahdaa saadaasa male markii ugu horeysay hablaha reer Sanaag ay lacagta iska ururinayeen ay hawo ururinayeen aanay waxba isla haynin ay wadada dhagax dhigayeen saadaasa male ayaa raguna yiraahdeen runtii horta saadiina waa suura gashay oo de waa taas maanta laamigii baynu intii ugu horeysay aynu wadnaayo joognaa haddaba fariin waxaan u dirayaa dhammaan reer Sanaag meel kasto ay joogaan khaasatan dadka debadda noo dhagan nuglaada lacagta idinka idin fadhida dadka debadda dhulkooda dhisa goboladii naga dambeeyay ee bilaabay waanu qiiroonaa marka debadda lacagtu saa isaga soo daba dhacdo walaalayaal markii ugu horeysay waxaadna tidhaahdeen wadada bal qalab ha la arko qalabkii indhihiino 15 aanu keenay waxaad tiraahdeen wadada ha la bilaabo wadadii waaba socotaayo 10 kilomitir bay maanta maraysaa hadeer waxaad maraysaan de madowgii miyaa la arkay war bakhiilka hadalkiisa weeye ee ka daaya
laamiga kaftanka ka daaya dariiqii wuu furmay waddankiina waad imanaysaan daaraa dhaadheer baad ka dhigaysaan ilaahay risqaha idiin barakeeyo jannada aan u tartanno weliba rag iyo dumar baa jannadii haddeer loogu tartamayaa dumarkii baad moodaa inay u badan yihiin ragow jaabka fura shaqaalaha iyo injineerada iyo mas-uuliyiinta waddada ururka haweenka ee gobolka Sanaag saxaafadda dhammaan inta shirka ka soo qayb gashay waxaa sharaf weyn inoo ammaanta inaynu isugu nimaadno inagoo ku gudoomayna lacag qiimo iyo qaaya leh waddada Cerigabo lacagtaasoo kala ah 2400 oo ururka haweenka ay nagu soo wareejiyeen iyo 4295 oo la soo mariyay maayarka magaalada Cerigabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo uu soo direen ururka Somaliland ee Albert waxa Australia qof kasta oo lacag ku soo shubaya sidaasaanu waxaan u cadaynaynaa inaanu si maqal iyo muuqaal ah aanu u qabanayno isla markaana loogu shubayo akoonkii loogu talagalay iyadoo wax laga jaray iyo wax laga gooyay midna aanay jirin qof kasta waxaan leeyahay oo doonaya inuu if iyo aakhiraba liibaano inaad ku soo hagaajisaan sidaa u soo dirtaan sidaasaanu idinka qabanaynaa waxaanu magaca guddiga qaadaan ururinta gobolka Sanaag ku haynaa 6695 waxaan u mahadnaqayaa hablaha reer Cerigabo ee maanta keenay horteena alaabta taalla ee ugu deeqay shaqaalaha waddada mar labaad waxaan ugu mahadnaqayaa lacagta ay soo ururiyeen ee gudoomiye ku-xigeenku imika inoo tilmaamay $2400 oo qaaraankii ay waddada ku dareena taas waa bilowgoodii waxaa halkaa ka muuqata inay tallaabo door ah ka horeeyaan ragga hablaha waan u mahadnaqayaa mar walba waan u mahadnaqayaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa hablaha jaaliyadda Somaliland ee jooga Australia magaalada Beerto ee soo diray lacag dhan 4295 ay soo mariyeen gudoomiyaha degmada Ismaaciil Xaaji Nuur waan u mahadnaqayaa waana muwaadiniin muujiyay inay dalkooda u maqan yihiin ee aanay shakhsiyaadkooda u maqnayn kuwa waan u mahadnaqayaa kuwa kale ee daawanaya waxaan leeyahay ku dayda hablaha iyo dadka muwaadiniinta ee maalkooda u soo diray inay u horaan u geliyaan waddada Cerigabo waxaan fariin u dirayaa dadweynaha reer Somaliland gaar ahaan waxaan TV-ga ka daawadaa degmooyin badan oo laga furay wadooyin waa wada hinaas waxaas wadada qura ee dalku u baahan yahay inuu iskaga xidhmo waa taanu maanta taaganahay waxaan leeyahay dadweynaha reer Oodweyne maxay ahayd reer Balligubadle Salaxley Dawga Cad dhammaantood waxaan leeyahay haddaad dad muwaadiniin Soomaaliyeed tihiin way wanaagsan tahay inaad dhistaan wadooyin kale oo qurux badan oo dalkeena bilicu sameeya laakiin waxa garataan inay inaga maqan tahay wadadii halbowlaha dalkeena isku xidhaysay waa Cerigabo walaalayaal indhihiina iyo dhagahaba u soo jeediya oo maalka geliya oo xinka ka daaya wadooyinkaana garab wadaan tana maanta halbowlihii aan ka wada shaqeyno 23 sanadood baanu dhinaciina u soo jeednay oo wax walba u soo wadnay wayna taasi waxayna tusinaysaa war kuwaas miyay talow idinka jeedaan may oran mayno idinka jeedaan laakiin waxaan leenahay waa horumar laga shaqeynayay kana soo taageera boqolkiiba boqol soo taageera min fadlakum sidaasaan idin leeyahay waan idin mahadnaqayaa dhammaan dadkii ku ballan qaaday inay xoolo gelinayaan waddada Cerigabo kuwii xoolaha nool ku ballan qaaday iyo kuwii lacagta ku ballan qaaday ee reer Boorame Hargeysa Burco Oodweyne Balligubadle dhammaantood waan u mahadnaqayaa kuwa ka dhimanna waxaan leeyahay ku dayda oo soo raaca aan reer Cerigabo iyaga gaar waxaan u leeyahay war horumarkeennii dalkeenna iyo dadkeenna waa aragnaa inagu halka la marinayo waa aragnaa innaga nimay ku hadhay hawle haysaa innagay maanta inoo taalla waana aragtaan qalabkii iyo waddadii halkaanu taagannahay soo kaca cidina inooma maqna waxa weeye waxaanu taagannahay iminka kilomitir 10 oo dhamma gebagabadii maraya muddo badanna wax la lahaa waxba kama jiraan waddada dad badan baa sheekada waday waxaasi way suurageli waayeen waa beenoobeen way socotaa qalabkiina waa aragtaan shaqadiina waa aragtaan waxaan leeyahay dhammaan ummadda reer Somaliland waxaanu ka sugaynaa inay waddada u kacaan hantidoodana u huraan gaaraan reer Sanaag waxaanu leenahay anigu waqtigii baan London
ballan baynu soo gallay lacagtii aad ku ballan qaadeen waa laydinka sugayaa iyo mid kaloo badanba waxay ballanteennu ahayd inaad lacag soo dirtaan aynu qoondaynay halkiina ka sii wadi doontaan gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa hablaha UK ee aan la kulmay ee aanu soo ballannay anigoo raggana u mahadnaqayaa si gaara ugu sii mahadnaqayaa waxaan leeyahay habluhu waa ka jajabnaayeene waa sanadkii hablahaan u malaynayaaye waa laydin sugayaa waxaan u soo jeesanayaa horta marka hore shalayto ayaa waxay la soo hadlay jaaliyadda Somaliland hablaha degan magaalada Albert waxay igu soo hagaajiyeen lacag dhan 4,295 boqor iga qabo tiri waa gabdhaha magaalada degan Australia jaaliyadda Jamhuuriyadda Somaliland Bert gabdhaha degan weeye rasiirkiina wakaa waxay kaloo ballan igu qaadeen markay daawadaan inay lacag kale bilaabayaan ayay igu ballan qaadeen marka lacagtiinii oo aan waxba ka maqnayn rasiirkiina waa kaa goobta igu amarteenna waa ku dhiibay shaashaduna way joogtaa waxaan la hadlayaa Home Cable iyo telefishinka qaranka iyo idaacadda intaba waxaan rajaynaynaa si ay dadkaasi u ogaadaan waxoodii inay meel wanaagsan galeen rasiirkiina wakaa waxaan codsanayaa oo ku celcelinayaa hablii aynu soo ballannay shalay ee telefoonka ka soo ballannay ee aan ahayn reer Sanaage waxay ahaayeen jaaliyadda Somaliland ee degan Bert waxaan rajaynayaa markaad daawataan inaad sii kalena bilowdaan waxaan la hadlayaa reer Cergaabo ballan baa qaadeen reer Cergaabow hadday lacagta tahay iyo hadday xoolii tahayba 10 kilomitir waa dhamaaday wixiiba diyaar baa loo yahay degdegna waa loo rabaa waxaan rajaynayaa kunta gadhiisha iskaga dhigtaan bidnillaahi alkariim tan intan daawadayaal barnaamij kale isugu iman doono waa anigoo Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid iyo sidoo kale dhammaan bahda TV-ga qaranka Somaliland oo idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh